waxaan hore loo shaacinayaa hadda bannaanka yimid kadib markii warbixin culus ay sheegtay in Somaliland loo diyaarinayo door cusub oo military oo si toos ah u bedeli kara awoodda gobolka. Dekedda Berbera, saldhigyo ciidan, maraakiib dagaal iyo gantaalo casri ah dhammaan waxay qayb ka yihiin qorshaha ay Iiraan iyo Xuutiyiintu ku tilmaameen halis toos ah. Maxaa dhab ahaan ka socda gudaha Somaliland? miyuu Maraykanku qorsheynayaa saldhig military inuu ka samaysto Berbera? Sidee Berbera u noqotay meesha ugu xasaasisan ee badda cas? mise Maraykanka ayaa doonaya inuu Somaliland aqoonsi rasmi ah siiyo si uu halkaasi saldhig uga samaysto? Warbixintan dhammaadkeeda ayaad ku ogaan doontaa xogta ay quwadaha dunidu sida weyn uga walaacsan yihiin. Warbixin dheer oo baahisay warbaahinta Maraykanka ee Fox News ayaa sheegtay in dowladda Iiraan iyo kooxda Xuutiyiinta ay taageerto ay si weyn uga walaacsan yihiin doorka sii kordhaya ee Somaliland ee gobolka badda cas, gaar ahaan suurtagalnimada in Maraykanka iyo Israa'iil iyo quwadaha reer galbeedku ay isticmaalaan dekedda Berbera iyo saldhigyada military ee Somaliland. Warbixintu waxay tilmaantay in Somaliland ay noqotay meel istiraatiiji ah oo si weyn loogu tartamayo maadaama ay ku taalo meel si toos ah u maamusha marin biyoodka muhiimka ee Bab el-Mandeb oo ah wadada ugu muhiimsan ee maraakiibta shidaalka iyo ganacsiga caalamku maraan. Khabiir arrimaha bariga dhexe iyo siyaasadda dibadda Liza Daftere ayaa u sheegtay Fox News Digital in nidaamka Iiraan uu si weyn uga cabsi qabo waxa Somaliland ka socda, iyadoo sheegtay in Somaliland noqon karto saldhigyo saaxiib la ah reer galbeedka iyo welibana Israa'iil oo ka soo horjeeda saamaynta Iiraan ee gobolka. Waxay sheegtay in Iiraan adeegsanayso kooxaha Xuutiyiinta si ay cadaadis u saarto maraakiibta maraysa badda cas, balse haddii Maraykanka iyo xulafadiisu helaan marino military oo Somaliland ku yaala ay taasi wiiqi karto awoodda Iiraan iyo Xuutiyiinta. Daftere ayaa sidoo kale sheegtay in Xuutiyiintu ay si cad ugu hanjabayaan inay weerari doonaan saldhig kasta oo Israa'iil ama reer galbeedku ka samaystaan Somaliland, isla markaasina ay xanibi karaan maraakiibta Bab el-Mandeb haddii xiisadda gobolku sii korodho. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in howlgallada military ee dhowaan dhacay ay si weyn u wiiqeen kooxaha Iiraan taageertay Xuutiyiinta. Afhayeenka aqalka cad ee Anna Kelly ayaa sheegtay in howlgalkii loogu magac daray Operation Epic Fury uu guul ku dhammaaday, isla markaasina uu dhaawacay awoodda kooxaha ay Iiraan ku tiirsan tahay. Sidoo kale, Viton Brown oo hore u ahaa safiirka Britain ee Yemen ayaa sheegay in Iiraan ay aad uga cadhootay xiriirka Somaliland iyo Israa'iil, gaar ahaan markii Israa'iil aqoonsatay Somaliland dabayaaqadii sanadkii hore. Viton Brown ayaa sheegay in Somaliland ay noqon karto xarun muhiim ah oo lagaga hortago Xuutiyiinta, taasi oo khatar weyn ku ah waxa Iiraan ugu yeedho Axis of Resistance. Warbixintu waxay sidoo kale xustay in Maraykanku uu hore saldhigyo waaweyn uga samaystay dalka Djibouti, balse khubarada ay hadda u arkaan in Djibouti aysan mar dambe noqon karin meel si buuxda lagu kalsoonaan karo maadaama Shiinuhu uu si weyn iskugu ballaarinayo joogitaankiisa military iyo ganacsi ee halkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Cabdiraxmaan Daahir Aadam ayaa Fox News u sheegay in Somaliland diyaar u tahay in Maraykanka siiso marin xeebeed iyo adeegyo military si loo ilaaliyo amniga marinada ganacsiga ee caalamiga. Wuxuu sheegay in maraakiibta dagaalka ee Maraykanku ay mararka qaar qaataan 2 toddobaad si looga soo buuxiyo gantaalada ay isticmaalaan marka ay howlgalka badda cas wadaan, balse ay Somaliland diyaar ugu tahay inay bixiso adeegyo sahlan oo ay ku taageerayso military ahaan. Sidoo kale, ila ka tirsan dowladda Somaliland ayaa sheegaya in Somaliland diyaar u tahay inay kaydiso gantaalka Tomahawk si loo xoojiyo iskaashiga amniga ee ay la leedahay Maraykanka. Senatarka reer Texas ee loo yaqaano Ted Cruz ayaa ugu baaqay Maraykanka inuu si rasmi ah u aqoonsado Somaliland, isagoo sheegayna inay noqon karto xulafo muhiim oo la dagaalanta argagixisada kana caawisa Washington. Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in taliyaha ciidamada AFRICOM Dag Finn Anderson uu dhowaan booqday dekedda Berbera, halkaasi oo la sheegayo in wafdiyo military oo Maraykan ah ay yimaadaan Somaliland 2 biloodba hal mar. Sarkaal hore difaaca Maraykanka ayaa xaqiijiyay in ciidamada Somaliland iyo kuwa Maraykanku ay iska kaashanayeen howlgallada ka dhanka ISIS tan iyo sanadkii 2023, gaar ahaan howlgalkii lagu dilay Bilal al-Sudani oo lagu tilmaamay maalgeliyaha ugu weyn ee ISIS ee gobolka. Inkastoo wada shaqayntaasi jirto, dowladda Maraykanku waxay si rasmi ah weli u taageertaa dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama Somaliland ay ka goday Soomaaliya sanadkii 1991. Warbixintan ayaa tilmaantay in Somaliland ay hadda isu bedeshay meel muhiim u ah loolanka cusub ee ka socda badda cas, iyadoo dowladaha Maraykanka, Israa'iil iyo Iiraan iyo Shiinuhu iyo quwadaha kale ee caalamku ay si dhow ula socdaan mustaqbalka gobolka iyo cidda gacanta ku dhigi doonta marinka istiraatiijiga ee dunida ugu muhiimsan ee loo yaqaano Bab el-Mandeb.